Ma dhaba in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sheikh Maxamuud oo cudud ciidan u diyaarsaday mucaaradka maxaase ka jira in ciidamada gaarka ah ee uu diyaarsaday Xassan Sheikh Maxamuud ay kor u dhaafayaan 20,000 oo askari daawada muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si sheer garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ku bilowne madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sheikh Maxamuud oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay si aad ah isku hayaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay ugu horeeyaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo xubno kaleeto oo mucaaradka ah oo ay qayb ka yihiin xubnaha haatan ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo horkacaya Daahir Amiin Jeesow ayaa waxa ay wararku ay sheegayaan in madaxweynaha uu diyaarsaday cudud ciidan cududaasi ciidan oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 20,000 oo askari kuwaasi oo si gaar ah u tababartay madaxweynaha isla markaana uu doonayo inay ka howlgalaan oo kaliya siyaasiyiinta mucaaradka laguna cunaqabateeyo siyaasi ka tirsan mucaaradka ayaa ku eedeeyay xukuumadda madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud in ay si qarsoodi ah u dhistay ciidan gaar ah oo ka kooban ilaa iyo 25,000 oo askari kuwaasi oo loogu talagalay in lagu caburiyo mucaaradka siyaasadda dalka qaybta ka ah Cabdullaahi Sheikh Xasan oo ka mid ah hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa eedeynta ka jeediyay shir 2 maalmood u socday ururka xisbiga himilo qaran oo ku qabsoomay magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoo sidoo kale sheegay in uu soo xiganayo ilo sirdoon oo gudaha ah waxa uuna sheegay in ciidankani sida gaarka ah loogu tababaray in ay bartilmaameedsadaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo shakhsiyaadka uu madaxweynuhu u arko in ay halis ku yihiin xukunkiisa waxa uu ugu baaqay ciidamada dowladda inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda isagoo uga digay madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud in uu u adeegsado ciidanka ammaanka ujeedooyin siyaasadeed madaxweynuhu waxa uu qoray ciidamo si gaar ah loo tababaray oo aan hoos imaanin 3 laamood ee ugu waaweyn amniga dalka si loogu bartilmaameedsado mucaaradka looguna dhigo kuwa hub la'aan ah ayuu Cabdullaahi ku eedeeyay xukuumadda uu hogaamiye ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu sidoo kale tilmaamay in durbaba la dareemayo culeyskani soo food saaray siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo ciidamada uu diyaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud oo shalay ka hadlay Muqdisho una muuqday inuu ka jawaabayo eedeymahani ayaa ku tilmaamay cabsigelin siyaasadeed madaxweynaha waxa uu intaa ku daray in hadallada mucaaradka ay qayb ka yihiin xasilooni darada dalka ka jirta kooxaha mucaaradka Soomaaliyeed ayaa dhawaan qaadacay diyaarinta doorashooyinka 2026 ee uu wado guddiga doorashooyinka iyaga oo ku eedeeyay madaxweynaha in si kaligii talisnimo ah uu u maamulayo hanaanka doorashooyinka sidoo kale dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa si cad uga hor yimid qorshaha dowladda dhexe ee ku aadan doorasho qof iyo cod ah in laga qabto guud ahaan dalka iyagoo u sababeeyay cabashooyin la xiriira arrimaha amniga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee haatan taagan oo sidoo kale dhabarjab ku noqon karta dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa si cad u sheegay in haddii ay isku daydo dowladda federaalka Soomaaliya in awood ciidan ay ku maquuniso mucaaradka ay waxa ay ka dhaxlaan ay aaba dhihi doonto madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya Mudane Xassan Sheikh Maxamuud
waxa uuna sheegay in horay madaxdii isaga ka horeysay sidaan oo kale ay ugu fashilmeen in awood ciidan ay ku maquuniyaan arrimaha doorashooyinka isla markaana xoog looga wareejiyo madaxtooyada sida uu tilmaamay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku hanjabay in uu ciidamo fara badan diyaariyay isla markaana haddii xabad sheekadu ay tagto aanan waxba laga cuni doonin mucaaradka ku sugan gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho daawade bal sidee u aragtaa adiga khilaafkani xooggan ee ka dhex bilowday mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhexe isla markaani lagu eedeynayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ciidamo kor u dhaafaya 20,000 oo askari oo u tababartay sidii uu hubka uga dhigi lahaa ciidamada mucaaradka ee uu hogaaminayo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed